dibadbaxyo ay rabshado ka dhasheen oo ka dhacay Soomaaliland kuwaas oo ay horey ugu baaqeen mucaaradka waxaan ku dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jiraa kala koobkii hadda ku maqanahay galabta ayaa noo soo aan ku tashanay marka laba ma wada keenayno media la wadaagin hadda la ilaaho laakiin dhimasho iyo dhaawac waa jiraa qaar ka mid ah dalalka Afrika oo amaanay hanaanka ay u dhacday doorashada dalka Kenya waxa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan dawladda Itoobiya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in mishiinka labaad ee biyo xireenka muranka badan dhaliyay uu haatan shaqo bilaabay iyo dabcan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha barnaamijka waxa si wada jira u soo saaray Saciid Xasan Anteeno iyo Faarax Lamaane anigoo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee duhur wanaagsan dhageystayaal waxaan marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaa duhurnimadan la diyaara Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe mahadsanid Fartuun Ismaaciil sawirro uu qaaday qalabka satellite-ka ee hawada sare ayaa muujiyay burbur xoog leh oo gaaray saldhig ay ciidamada cirka ee Ruushka ku leeyihiin gobolka la qabsaday ee Crimea halkaasi oo talaadadii ay ka dhaceen qaraxyo wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Kyiv ayaa sheegay in sawiradan ay u muuqdeen kuwo ka soo horjeeda sheegashada Ruushka oo ah inaysan jirin diyaarado burburay wararka laga soo tabiyay dalka Belarusna waxay sheegeen in iftiin la arkayay qaraxyo waaweyn ay dhaceen xilli saldhigaas ciidamada cirka ay ku leeyihiin meel ay ka dhaceen saldhiga ay ciidamada cirka ku leeyihiin meel u dhow xadka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in uu matoor dab qabsaday wax khasaare nafeed ahna uusan jirin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaashiisa ayaa ku hanjabtay in ay argoosi ku sameyn doonaan Kuuriyada Koonfureed oo ay ku eedeysay inay sabab u yihiin cudurka COVID-19 ee gaaray wadankeeda gabadhan oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa sheegtay in fayraska looga soo gudbiyay xadka isagoo ku talaalan warqado oo la soo raaciyay buufinno Taiwan ayaa fulisay howlgallo kale oo dabrid toos ah ay ku sameeyeen ciidankeeda hal maalin uun kadib markii uu Shiinaha ku dhawaaqay inuu soo afjaray dhoolatuskii military ee uu ka waday biyaha ku hareereysan jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday dowladnimada taliska militariga Taiwan ayaa sheegay in ay gantaallo ku tuureen dhinaca badda afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa isiguna waxa uu shir jaraa'id oo uu qabtay wax looga weydiiyey arrintan waxa uuna digniin u diray Taiwan waxaan carabka ku adkaynayaa in wadajirka dalka uu yahay arrin ay wadaagaan dadka Shiinaha waxaan abuuraynaa jawi nabadeed oo lagu midoobi karo laakiin fursad ma siin doono xoogaga madax bannaanida Taiwan iyo xoogaga dibadda ka soo faragelinaya fariintan waxaan u dirayaa dadka u ololeeya gooni u goosadka Taiwan ficiladooda ay ku baadigoobayaan madax bannaani iyo daandaansiga waxa kaliya oo ay sii hurinayaan baaba'ooda waxaana Taiwan ay ku sii ridayaan masiibo isku dayga lagu doonayo madax bannaani ma guulaysan doono in la iibiyo danta qarankana waxaa lagala kulmi doonaa guuldarro mas-uuliyiinta gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya ka maamusho ayaa sheegay in 3 askari lagu dilay 2 kalena lagu dhaawacay weerar ay koox mintidiin ah aroortii hore ee saaka ku qaaday saldhig ay militarigu leeyihiin 2 ka mid ah kooxdii weerarka geysatay ayaa sidoo kale lagu dilay rasaas ay labada dhinac isweydaarsadeen ugu dambeyntiina ciidamada ammaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa raadinaya in ka badan 800 oo maxbuus oo ay koox falaago ah ka sii daysay xabsi ku yaala gobolka North Kivu waxa ay falkan xabsiga lagu jabiyay ku eedeeyeen kooxda ADF oo xiriir la leh ururka dawladda Islaamiga warkii caalamka waa naga intaas aan dib idinku celiyo Fartuun Ismaaciil aad buu mahadsan yahay Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe ayuu kaasi ahaa dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka duur wanaagsan mar kale aynu ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan inuu iska horimaad uu halkaa ku dhexmaray booliiska iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka arintan ayaa timid kadib markii xukuumaddu ay mamnuucday in taageerayaashu ay wadooyinka u soo baxaan iyagoo mudaharaadaya taa bedelkeedna waxa ay xukuumaddu u astaysay in ay mudaharaadyadu ku qabsoomaan xarumaha xisbiyadooda taageerayaasha mucaaradka ayaa waxay ku
adkaysteen in ay wadooyinka u soo baxaan magaalada Ceerigaabo. gudoomiyaha gobolka Sanaaga Axmed Cabdi Muuse waxa uu BBC-da u xaqiijiyay in hal qof uu ku geeriyooday magaalada Ceerigaabo oo maanta ay iyadana mudaharaadyo rabshado wata ka dhaceen. wararkii ugu dambeeyay mudaharaadyadaasi rabshado wata sidoo kalena gobolada qaar ka dhacay waxa inoo haya Qadar Xaaji Cabdulaahi. faaraxu waad mahadsan tahay. xaaladda mudaharaadadii saaka ka bilaabmay Somaliland ayaa hadda la damiyey. mudaharaadadan ayaa waxa ay saaka goor hore ka bilaabmeen badi magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, halkaasi oo ay dadka mudaharaadii ay tagayeen goobo ay xukuumaddu u qoondaysay. sidoo kale xukuumadda ayaa waxa ay dhigtay isgoysyada waaweyn ee magaalooyinka dhexmara ciidamo ay ugu talagashay haddii ay bartaasi ka dhacaan rabshado inay ka hortagaan. waxaa la sheegayaa in mudaharadayaashu markii ay ka soo baxeen fagaarayaashii ay kula kulmayeen madaxda mucaaradka ay u soo baxeen banaanada, halkaasi oo ay ka dhigeen banaanbaxyo kasii ballaaran kuwii hore, iyadoo la sheegay inay taayiro ku gubeen meelaha qaar. taasina waxa ay sababtay in ciidamadii ay xukuumaddu ku diyaarisay goobahaasi ay iska hor yimaadaan dadka shacabka ee banaanbaxayay, iyadoo la sheegay inay u adeegsadeen rasaasta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eriyaan shacabkaasi banaanbaxayay. khadar, maxaan kala soconnaa gobolada kale ee Somaliland wararka ka imaanaya? faaraxow, dhammaan gobolada Somaliland oo dhan ay banaanbaxyadani ka jireen. waxaa la sheegayaa in banaanbaxyadan markaasi ay ka dhasheen khasaarayaal. tusaale ahaan magaalada Ceerigaabo oo kale waxaa la soo sheegay in hal qof ku dhintay banaanbaxyadii saaka ka dhacay, sida uu noo xaqiijiyey barasaabka gobolkaasi. wararka kale ee soo gaaraya Khadar waxa ay sheegayaan dhinaca internetka gaar ahaan magaalada Hargeysa oo kale internetkii gabi ahaanba in la damiyey. maxaa faahfaahin oo dheeraad oo ka haynaa? faaraxow, arrintaasi waa run. waxa ay xukuumaddu ku amartay shirkadaha bixiya adeega internetka inay hawada ka saaraan khadkaasi internetka gabi ahaantiiba marka laga reebo meelo gaara. arrintani maaha markii u horreysay ay dhacaysay. waxaa sidan oo kale looga saari jiray adeega internetka khadka xilliyada ay jiraan doorashooyinku, laakiin markan gabi ahaantiiba waa la xidhay. marka waxay u muuqataa arrin amniga la xiriirta. marka arrintan waxay u muuqataa arrin amniga la xidhiidha. tallaabooyinka dambe aan filayno maxaa ka mid ah? hadday noqoto mucaaradka, hadday noqoto dowladda, maxaa is leedahay iyo odayaasha qudhooda, maadaama meelo kala duwan aad la hadashay, maxaa is leedahay tallaabada ku xigtaa waa ay noqon doontaa ama waxa ku xigay la arki doono waa uu noqon doonaa? faaraxow, arrintaasi ilaa hadda wax xal ah oo muuqdaa ma jirto. xukuumaddu kama hadal. odayaashii dhexdhexaadintahay ee arrintan ku jirayna bannaanka ay ka istaageen hadda. marka waxaynu sugi doonaa uun bal xaalku sida uu noqdo. Qadar Xaaji Cabdulaahi aad buu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyay ee mudaharaadyadaasi uga waramayay waryahayaga Faarax Lamaane. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ciida Faysal Cali Waraaba ayaa ku eedeeyay xukuumadda Somaliland in ay ka dambeeyeen shaqaaqadii oo uu sheegay in ay dad badani ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen, iyadoo ay iminka ee wadaana tirinta khasaaraha ka dhashay isku dhacaasi. goordhaweyd ayuu qadka telefoonka iigu waramay. sababta dhowr jeer baan sheegno waxa weeye madaxweynahan hadda jooga dhaqankiisa Soomaaliya ku soo dhaqmeen 60 sano ayuu ka tegey, dastuurkii waa jabiyey. wada hadaladii wada ogeedo dad dhexdhexaad ah oo ah ururkii Soomaaliya ha ahaato ama culimadiin amba ha ahaato daamishari amba ha ahaato salaadiine oo naga joojiyay mudaharaadkii bishii hore toban aan deginay oo haddana ku soo darsameen 11 guurtii intiba waa diiday. wuxuu yahay waxaan dhex gelaya labada gudoomiye labada baarlamaan, iyagana waa marka dambe diiday. marka waxaan go'aansanay markaan mudaharaadka dhigno oo sharci ah dastuurka uu sheegayo laba maalmood ka wada fadhina arrintaas. wixii aanu ay noo calaamadiyeen ayaanu isla garanay. hase haatee waxaa nasiib darro dhacday in askartii booliiska ay xaalad ka isqabteen. ragii waaweynaa yidhaaheen anagu xabad ku rimayno. markaa qaar la bedelay dhalinyar yar oo wax ku soo akhriyay ayaa markaa dadkii rasaas la dhacday. waa tahay rasaasta la soo sheegayo in la maqlayay intii uu socday dibadbaxa, dad aad noo sheegi kartaa wax ku noqday miyaa jira? waxaan ku dhimashana way jirtaa, dhaawacna waa jiraa. kala koobkii hadda ku maqannahay galabta ayaa noo soo aanu ku tashanay marka laba wada keenay inaanu media la wadaagno hadda la ilaaho, laakiin dhimasho iyo dhaawac waa jira. waata marka yaa mas'uuliyadeeda qaadaya dadkaas ay dhibtu soo gaartay ee banaanbaxa dhigay? waxa mas'uuliyadda qaadaya Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixila qaadaya oo Muuse afkiisa ku yiri rasaas la dhaca oo Danielka ku yiri anagu ma sidan xabad lama sidan. waxa weyn in siday waxa qaar baa siisitay dariiqa aan marinaya ku soconay xafiiska wadani New Hargeysa ayaan ku soconay. gaas maasbaan naga daalay
xabad baa naga nool waxa dil dadweynaha la dilo oo si cad ah oo loo soo gaban taasna cawaaqib wuxuu keeni doontaa waa tahay gudoomiye annaga wax cadayna uma hayno in askartaasi la amray in ay rasaas ku furaan dadka dibadbaxayay balse maalmo ka hor waataad lahaydeen heshiiska waa uu burburay dowladana waataa war ka duwan ka soo saartay marka maxaad idinku ugu degdegaysaa inaad fawdo sii wadaan mar haddii ay dowladdu heshiis ogashahay annagu de waxaan ku nidhi wadooyinkii kala dhaba naga xidhmay ee Soomaaliya ku caana baxshay wada hadalada ahayd istoorka ahayd commissionkii uu kala eriyey uu saaray sharci wuxuu jecel sharci ka dhigtay وسورتجلين تورسين مدحونها أو قرشيسن لعقتي لهايو نيتجريسن قولالي جورتي وقتي الواد مالي كل صدقي بشيني الساق وحكي ما أنت صدق حياتك مفهوم أنا نحكي لا تكا وإحنا قد أمانة إن شاء الله ديسمبر قالكم مركاو كبحي حبكي الديمقراطية دحين كسو عمنا لا بكون لبلي وكبحي وكساري حدوني وحيبسيتو تني كرياله hadda maxaad xalka u aragtaa ma sii wadaysaan barnaamijka maanta xalka waa tashana xalka waxa weeye waa la tashanaya shirweyn baa dhici doona oo dawladku meel gaar ah la sameeyo dowladda Soomaaliya isku iman doono ilaa sabta lagu dhawaaqi doono insha Allah taala marka barnaamijka ma maanta ayuu ku eg yahay mise waad sii wadi doontaa uu soconaya barnaamijka uu soconaya hadda ilaa marka sidee rabtaan in aad idinka iyo dawladda ku macaamishaan mar haddii dadkiina ay dhibaato soo gaarayso haddii uu ka tagay dawladda macaawil way dhamaatay dawladda macaamilay hadda xoog buu isticmaalayaa sidii xooga iska caabi lahaa ayaan ka tashanay insha Allah taladan badsanina sabtina insha Allah waxa maqan doonta hadda ilaa qaraaro soo baxda anagu dalabtan hadli doona insha Allah taala kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidda Faysal Cali Waraabe oo qodka telefoonka iigu waramayay dowladda Soomaaliland wali kama aysan hadlin rabshadaha ugu dambeeyay ee dhacay maanta noomana ay suurtagelina in ay ka jawaabaan eedaha ee Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid laakiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa horey u mamnuucay in waa hagaag dhageystayaal haatanna kooxaha korjoogayaasha waa urgoboleedka Komesa midowga Afrika urgoboleedka Igaad iyo kan Afrikada bari ayaa amaanay hanaankii ay u dhacday doorashadii Kenya laga qabtay talaadadii waxayse soo jeediyeen in loo baahan yahay in la helo xiriir wanaagsan oo dhexmara guddiga doorashada iyo dhinacyada doorashada ee ku lugta leh waxa ay ka digeen in natiijo lagu shaaciyo baraha bulshada guddiga doorashada ee Kenya wali kuma dhawaaqin natiijada tartanka madaxweynenimada hase yeeshee waxa ay ilaa hadda lagu dhawaaqay natiijooyin ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka deegaanada qaar waxa soo laabtay dadkii hore uga soo gali jiray sida Aadan Barre Ducaale oo mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Garissa halka qaar kalena ay sanooyin kadib ku soo laabteen baarlamaanka sida gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Farax Macalin oo ku guuleystay doorashada ka dhacday Dadaab markii natiijada lagu dhawaaqay kadib ayuu Farax Macalin la hadlay dadka reer Dadaab warbixin hordhaca oo ay soo saareen kooxdaas korjoogtada ah ayaa waxa ay ku soo qaadeen in tiradii loo baahnaa ee dadka codbixiyayaasha aanay u soo bixin doorashadan oo ahayd mid aad loogu tartamay hay-adahaas Komesa iyo midowga Afrika ayaa muraaqibiintii ka socotay waxa ay sheegeen sidoo kale in ay jirtay dhaqaalihii loogu talagalay guddiga doorashooyinka ee Kenya oo xilli dambe la sii daayay taana ay keeni karto bay yiraahdeen in waxoogaa xagaldaaca uu ku keenay qaabkii loogu talagalay in dadka markaasi loo baro qaabka ay u codayn doonaan iyo diiwaangelinta kooxda waxa kaleeto ay sheegeen in markaas meelaha qaarkood walaac uu ka yimid la xiriira qalabkii lagu codeynayay ee elektrooniga ahaa oo aan shaqaynin taana ay keentay meelaha qaar in ay ka dib dhacaan xilligii loogu talagalay waxa kaleeto ay soo qaadeen arrin la xiriirtay daabacaadda oo markaa la isku khalday warqadihii la daabici lahaa ee lagu codeyn lahaa waxaase ay ammaaneen qaabka teknolojiyada ee loo isticmaalay doorashadan oo ay sheegeen in ay ka wanaagsanayd kuwii hore marka la fiiriyo guddigan ninka madaxda ka ah waxa weeye madaxweynihii hore ee waddanka Tanzania Jakaya Kikwete waxaana uu iminka soo jeedinayaa in musharaxiinta iyo dadka reer Kenya intaba ay ahaadaan kuwa markaasi si nabdoon uga wardhowra xilliga lagu dhawaaqayo iyo natiijada waxa ay noqon doonto haddii uu eebeedmo
wagaag dhegeystayaal naga raali ahaada kaasi waxa uu ahaa Faarax Lamaane oo inoo soo jeedinaya warbixin ku saabsan kooxaha korjoogayaasha doorashada Kenya oo sheegay in ay la dhaceen habka ay u socdaan ilaa ay hadda sidoo kalena kooxaha korjoogayaasha ka socda urur goboleedyada qaar oo amaanay habka ay doorashada u dhacday haatan hadii aynu aadno wararkii ugu dambeeyay ee doorashadii ka dhacday ama wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Mombasa ayaa waxa inoo haya yahayaga oo halka ku sugan Cabdifataax Ibraahim Cagayare fartuunay halkan aan ku suganahay waa mid kamid ah goobaha 290 deegaana ay ka soo dhacayaan natiijooyinka deegaanada 290 halkan waxaa horteeda ka muuqanaya dad tiro badan oo jooga oo u badan wakiilada dadka tartamayay iyo musharaxiinta qaarkood iyo sanadyo aad u tiro badan oo mararka qaar meeshan inta dhinaca la dhigay aad u buuxiyay si ay hawsha ku socotaa marka waxaa la yeelinayaa deegaan iyo weliba kuraas kala gudsan 6 kuraas ahayd kuraas loo tusmay laakiin hadii laga saaray barsaabkii magaaladan laakiin 5 kale ayaa hadda mid la yeelinayaa halkaana buuqaseed maqlaysaan marka kooxda loo yeerayaa weyna dadku waa ay joogaan oo tan iyo xalay ilaa iyo shalayba hawsha ay socotay guud ahaana magaalada haatan dib u furfurmaysaa dadkuna waxa ay ka dhig sugayaan natiijada weyn ee tan madaxtinimada sidaan ognahayna natiijadaas ilaa haatan wax rasmi ah oo soo baxay ma jiraan labada musharax ee ugu waaweyn William Ruto iyo Raila Odinga aad u soo dhow yihiin oo marba midba hormaraya marka la fiiriyo sida ay tabinayaan warbaahinta maxalliga ah laakiin ilaa haatan cid horeysa oo si rasmi ah ugu dhawaaqday ama ma jirto guddiga doorashooyinka dadkuna waxay aad u eegayaan oo kale dhinaca sida aad warbixinada ku sheegayseen waxaa soo baxaya in lagu dhawaaqo kuraasta kala gedisan xildhibaanada kan haweenka midka sanadka kan deegaanada hoose kuwa barasaabyada laakiin meesha ugu adag ilaa haatan laga dhigsugayo waa midda madaxtinimada oo labada musharax waaweyn ay marba mid u hormarayo sida lagu arki karo warbaahinta kala gedisan laakiin guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay haystaan muddo toddobaadkaasna ay kusoo gudbin doonaan natiijada rasmiga iyagoo soo eegay oo midda kama dambaysta ay ku dhawaaqi doonaan waqtigaas uu sharciga u ogol yahay inuu ku dhawaaqaan Cabdifataax goorma ayaa la filayaa in natiijada ugu dambaysa lagu dhawaaqo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka IEBC waa College Bukati oo xalay la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in waqtiga sharciga uu siinayo ka bilaabanaya maalinta Talaadada marka doorashada dhacdo maalinta xigta Arbacada ilaa iyo 7 maalmood halka marka laga tiriyo ay haystaan si wanaagsan ugu socdaan waxa uu sheegay in inta waqtiga lagu guda jiray ay sheegi doonaan dadkana uu ka codsaday in ay dejiyaan oo ay sabraan oo ay ka dul sugaan natiijada kama dambaysta uu ku dhawaaqi doono waxaa dareemi jirtaa fartuunay in ilaa iyo 290 deegaan in ka badan ilaa iyo 46,229 goob ay dadka codkooda ka dhigteen intaasoo kun oo deegaan waa inay yimaadaan dadkii madaxda ka ahaa doorashada oo weliba ay gacantooda ku keenaan warqadda waxay keenayaan 290 deegaan deegaanadaasi loo kala sii qaybiyey markii halkaa lagu tiriyo oo mid kamid arigan joogo ayaa kadib warqadaas waxaa lagu diri doonaa dhanka internetka kadibna gacanta inta lagu qaado ayaa waxaa la geyn doonaa Bomas of Kenya oo ah halka natiijooyinka ay kasoo dhacayaan iyadoo la eegi doono marka in wixii lagu soo diray dhanka internetka iyo warqadda uu qofka caadiga ugu keenay inay isku yihiin marka kadibna lagu dhawaaqay marka waa hawl adag oo dheer laakiin qofka jooga meelaha codkii kasoo dhacayaan wuu dareemi karaa in wax badan ay socdaan oo dad badan la qancinayo markaan eegno hadalka guddiga waa College Bukati waxaa halkaa ku cad in waqtiga lagu talagalay ay weli ku jiraan oo maalinta labaad haatan lagu jiro oo maalmo kale ay u harsan yihiin waqtigaana ay doonayaan inay kusoo gabagabeeyaan inay ku dhawaaqaan natiijada madaxtinimada waa tahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada magaalada Mombasa inala socodsiinaya aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax wararkii doorashada Kenya ayaan weli ku guda jirnay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday Dadaab markii natiijada lagu dhawaaqay kadib ayuu Faarax Macalin la hadlay dadka reer Dadaab ilaahay baan ku mahadinaynaa
marka hore maxaad ilaahay baana siiyey fursadan iyo caafimaadkan iyo noloshan aan maanta idiin hortaaganahay. haddii ilaahay ka dambe waxaan u mahadinayaa dadka dhadhaab reer dhadhaab oo dhanba constituency dhadhaab oo dhan culays badan baa iska jiray, laakiin sharaftooda ilaashadeen. doorasho waxay sameeyeen xaqe, doorasho ay ku xisaabtamayaan masiirkooda. waxaa la isku dayay dhibaatada ka jirta wadankan iyo meelaha kastoo soomaalida ay degto oo geeska afrika waxyaabaha hadda ka jira oo in lacag la siisto masiirkooda, laakiin way ku adkaysteen inay masiirkooda iyo aytiinkooda ay uga taliyaan siday isleeyihiin ayaa ugu habboon mustaqbalka caruurtooda iyo caruurtooda. waxaan aad u mahadinayaa dadkii soo doortay. waxaan idin leeyahay marnaba sharaftan iyo ammaanadan ay dhiibteen inaan ilaaliya baan mar kastaba ku talagelayaa. ilaahayna waan baryayaa. waa hagaag aadan bare ducaale ayaa isna guushiisa kadib ee hadal kooban oo mahadnaq ah u jeediyey dadka reer Gaarisa, waxaanu intaa ku daray inuu halkooda kasii wadi doono howlihii uu markii horeba u hayay dadka deegaanka. waxaan rabaa inaan meeshan mahad weyn iyo u celiyo ummadda Gaarisa kursiga baarlamaaniga oo markii afraad soo doorteen afar xisbi. 2007 waxay u doorteen xisbiga ODM, 2013 waxay u doorteen xisbiga aan bilownay aniga saaxiibka William Ruto qoliyaha URP. 2017 waxay u doorteen xisbigii aan isbahaysiga oo Jubilee. haddana waxay u doorteen xisbiga qoliyaha UDA. marka waxaan leeyahay siday caadadii ahaan jirtay kuwii ay codeeyeen iyo kuwii codeynin isku sidaan ugu shaqayn jiray, isku sidaan u wadaynaa, madaarista sidaan u dhisaynaa, hooyooyinka suuqa joogeen sidii baan u wadaynaa shaqadeennii, horumarka tacliimta, wadooyinka, biyaha iyo sidii aan codkayga iyo xooggayga iyo caqligayga aan ugu hadli jiray wakhti kasta ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta iyo shacabka Kenya. meesha ka soo wadayna waxaan leeyahay mabruuq, alfa mabruuq shacabkii doortay. guusha waxaa iskale shacabka animali. marka waxaan leeyahay guusha soo hoyatay. kaas wuxuu ahaa aadan bare ducaale oo guushiisa kadib mahadnaq u jeediyey dadka reer Gaarisa. weli halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in mashiinka labaad ee biyo xireenka muranka badan dhaliyay uu haatan shaqo bilaabay. biyo xireenka ayaa soo maraya heerar kala duwan iyadoo ay ku baxday lacag aad u fara badan. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo soo jeedinaya wariye Saciid Xasan Anteeno. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in mashiinka labaad ee biyo xireenka muranka dhaliyay ee Nile-ka Buluuga uu bilaabay inuu dhaliyo korontadii ugu horeysay. biyo xireenka guud oo ku kacay adduun gaaraya 4.2 bilyan oo dollar ayaa la filayaa inuu soo saaro in ka badan 5,000 oo megawatt oo koronto ah marka la dhameeyo. biyo xireenka ayaa waxaa ku muransan wadamada ku yaala bariga Afrika iyo labada wadan ee kala ah Suudaan iyo Masar oo si weyn ugu tirsan webiga Niilka. dhismaha biyo xireenkan ayaa dhaliyay muran badan, inkastoo ay jiraan wadahadallo marar kala duwan dhacay, haddana ma jirto heshiis dhex maray dalalka muransan. maamulada Qaahire iyo Khartoum ayaa waxay rabaan heshiis ku saabsan maareynta biyaha iyo yareynta abaaraha dhaca, waxayna ka soo horjeesteen go'aan hal dhinac ah oo xukuumadda Addis Ababa ay qaadato oo lagu buuxinayo kaydka biyo xireenka ka hor inta aan la gaarin heshiis. Itoobiya ayaa markii ugu horeysay korontada laga dhaliyay biyo xireenka bilowday bishii February ee sanadkan. isagoo ka hadlayay Khamiistii xaflad ka dhacday goobta biyo xireenka ee dalka Itoobiya, ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelin doonin qulqulka biyaha ee dalka uu gaaro webiga. Itoobiya ayaa waxay u aragtay biyo xireenka mid muhiim u ah dadaalka ay ugu jirto inay koronto siiso 10 milyan guryo gaaraya, gaar ahaan dhulka miyiga ah ee Itoobiya oo dhan. waxaa kale oo ay qorsheynaysaa Itoobiya in dalalka dariska la ah ay ka iibiso korontada ay ka dhaliso biyo xireenka. dhismaha biyo xireenka ayaa wuxuu qaatay in ka badan 10 sano. macad haddii saddexda dal ee ku muransan ay dib ugu noqon doonaan si degdeg ah miiska wadahadalka ee in isbeddelka ku yimid biyo xireenka ee ugu dambeeyay uu saameyn doono wadahadalka.
aad buu mahadsan yahay Saciid Xasan Anteeno warbixintaas inoo soo jeedinayay ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse haatan jaamacadda Jigjiga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay in sanadkii tagay ay deeq waxbarasho oo 120 arday ah u fidisay ee dawladda Soomaaliya balse aan fursadaasi looga faa'iideysan sidii la rabay hormuudka jaamacaddaasi Dr. Bashiir Cabdullaahi oo BBC-da u warramay ayaa intaa raaciyay in sanadkan ay 30 fursadood oo deeq waxbarasho ah siiyeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii ay xukuumadda dawladda deegaanka ballanqaad u sameysay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo halka ku sugnaa Dr. Bashiir ayaa u warramay Ismaaciil Buurgaabo waxaa soo boqday madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo noogu yimid jaamacadda kadib markii aan jaamacadda briefing ka siinay iyo programmada jaamacadda ay bixiso annagu ka duulayna go'aankii xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo sanad kasta ugu deeqa waxbarashooyin wadamada jaarka ah gaar ahaan wadanka Soomaaliya iyo isteetada uu ka kooban yahay annagu ka duulayna ayaa waxaan ugu deeqnay waxbarasho 30 arday ah taas oo sanadkii horena sidan oo kale aan ugu deeqnay hase yeeshee aanay ka faa'iideysanin deeqdaas waxbarasho heerarka waxbarashada isugu jirto waa noocee ay ku jiraan takhasusiyada ay dadku jecel yihiin ama qaaliga ah sanadkii hore xukuumadda dawladda deegaankeena waxay ugu deeqday 120 arday oo first degree ah ay ugu deeqday wadanka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada ayaa loogu deeqay aan jaarka nahay hase yeeshee ma ayna ka faa'iideysan sanadkan maadaama madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed soo booqday waxaan mar labaad aan fursad u siinay 30 arday oo waxbarasho ah oo ay waliba kuwa master hina ku jiraan haddii ay shuruudaha buuxiyaan marka kuwa first degree iyo kuwa master labadaba way isugu jiraan wixii shuruudaha buuxiyana insha Allah waan siinayna deeqda waxbarashada in laga faa'iideysanin sanadkii hore yaad siiseen yaad ku hagaajiseen deeqdaasi deeqdaas xukuumaddu markii ayna soo gaarsiisay wasaaradda waxbarashada waan u report karaynay iyagiina waan u sheegnay hase yeeshee ma garan karo kolley sababaha ay imaan waayeen annagu laakiin hadday noqoto caafimaadka iyo beeraha iyo arrimaha bulshada iyo businesska intaba socialka way isugu wada jiraan iyo nationalkaba wixii shuruudaha waddanku standard buu leeyahay marka jaamacadaha standardka lagu galo wixii buuxiyaa iminkana diyaar baan u lanahay kolkay xukuumaddu noo soo gudbiso inaan siino fursadaas waxbarasho fursadda waxbarasho ee la siiyo Soomaaliya oo kale gobolladee ama dawlad goboleedyada inta badan hadda ardayda qalin jabinaysa ama ardayda dhigata ay ka imaadaan ilaa hadda dawlad goboleedyada ka faa'iideysta waxa ugu badan Puntland waxaa kaloo ku jira in kastoo dawlad goboleedyada iyagu ay gaar uga taagan yihiin Somaliland iyaguna way ka faa'iideystaan ta kale ee soo raacday waxa weeyaan wax yar oo kooban oo ka yimaada iyagoo aan specifically cadeynin gobolka ay ka socdaan si guud ahaan Soomaaliya arday ka yimaadaan way jiraan laakiin marka aad si guud ahaan fiiriso ardayda ilaa hadda ugu badan waa Puntland fursadda waxbarasho deeqda ay bixinaysaan maxay uga duwan tahay jaamacadda Jigjiga jaamacadaha kale ardayda laga yaabo inay ka helaan deeqa waxbarasho ee caalamka oo kale dadkan waa dad Soomaaliya weeye dadka Soomaaliduna waa dad isku dhex jira waa dad wada qaraabo ah sidii shalay tolaba aad hadlaysay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu cadeeyay arday jaamacadda Jigjiga ka baxday oo fara badan inay dowlad goboleedkooda ka shaqeeyaan anigu maraan Muqdisho tagay waan ku arkay jaamacadda Jigjiga ka baxa marka saameyn badan bay ku leedahay mintaqada jaamacaddu maadaama dadku social iyo noloshiisa isku wada xidhan yihiin fursadda way uga fudud tahay meelaha kale ay ka helayaan aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Buurgaab haatan ciyaari hadii aynu eegno ciyaaryahanka Karim Benzema ayaa sii wada dadaalka uu ugu jiro hanashada Ballon d'Or isagoo u dhaliyay kooxdiisa goolkii 324 ee kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Real Madrid waxay garaaceen kooxda Frankfurt si ay ugu qaadaan koobka UEFA Super iyadoo kulanka uu ka dhacay caasimadda Finland ee magaalada Helsinki dhageystayaal halka ayaanu idaacadeena duhurnimo ku soo gabagabayn doonaa waxaana dib hawada ugu kulmi doonaa saacadu marka ay gaarto 5 galabnimo inta ka horeysan waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabaadiino